دكتور ليبان أبوكر عثمان بافو ومشرح تاجن حلك حكاية جود أورورك دخاتيرة الصوماليات Somali Medical Association khibradaha shaqo ee musharaxa Dr. Liban waxa uu heerar kala duwan ee waxbarashada ku diyaariyay cilmiga caafimaadka September 2015 ilaa iyo hadda Dr. Liban waa amiidka kuliyadda caafimaadka iyo qaliinka ee jaamacadda Horn of Africa July 2015 ilaa July 2017 waxa uu ka soo shaqeeyay hospitaalka takhasusiga ah ee Saacid Specialist Hospital isaga oo ahaa isku duwaha qaybta TB-da cudurrada guud iyo carruurta sanadkii 2015 waxa uu caawiye ila taliye ka noqday Square Survey oo ay maalgelisay hay'adda UNICEF laguna qabtay degmada Dolo waayo aragnimo caafimaad warug cadda khibrad fog u leh daryeelka iyo dib u noolaynta fayadhowrka bulshada Soomaaliyeed sare u qaadida iyo dardargelinta horumarinta ururada caafimaadka waa khabiir soo bandhigi kara dadaalada ururka ee ku aadan ka dhabaynta iyo tayeynta horumarinta caafimaadka Soomaaliya sare u qaadida xiriirka uu ururku la leeyahay dhammaan hay'adaha kala duwan ee caafimaadka Soomaaliya ku dooro daryeel caafimaad daacadnimo sinaan iyo maamul wanaag